وبركاته. أيها الأحبة، درسيغان ولا له قونديين إنه عوضحه الإسلام منصور لا محالة له. إسلام هو قولي سنية مرنكو مجره إن لو عمل فله وسيدي قولي سان لها لغا شقيانا وواجب دينية. عنوانكو انتا صوت المامية دوني دا وحان ognahay bini aadamku waa noolaha inta badan ka fakara mustaqbalka waxay noqon waa noolaha u khatida ee ku talagala mustaqbalku wuxuu noqon doono inuu sawiri karo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa mustaqbalka xaqiiqadiisa inuu isagu og yahay. قل لا يعلم الغيب من في السماء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إلهي وحليه سبحانه وتعالى ما أوغا عرئي الدل وحشوغا غيب كما أوغا ألمو يعني سبحانه وتعالى. حقيقة هن إلهي ينبوغ لكن بن آدم قوة الصادالية isagoo saadaashiisa ku salaynaya tagtadii hore ama taariikhdii hore iyo sidii wax ahaan jireen, isagoo ku salaynaya hadda duruufta taagani sida ay tahay, ayuu markaa ka saadaaliyaa mustaqbalkuna siduu u ekaan doono. dadka wax saadaaliya markaa dadna waa dad khibro u leh oo daraasaad badan ama cilmi baadhis badan intay sameeyaan mustaqbalku uu u muuqdo ilaa xaddin maa sawiran kara sida wax noqon karaan. dadka badhna taariikh hore iyo waxba toona ma eegaane waaqaca markaa ama laxdada lagu nool yahay unbaa intay u muuqatay moodaan inay dunidu madoobaatay oo mashaakilkaa markaa haystiya waxa unbaa intuu ka bato ayuunbu is idhaahdaa dunidu waxba isbedeli maayaan. sababta halkan la gaadho nooc min alyaas ayaa ku dhaca. mustaqbalkaasi eegistiisa muslimiintu aqoon-yahankooda waa baadhayaan, wax badan baanay eegayaan oo iftiiminayaan. cagsigeedana gaaladuna waa baadhayaan. buxuuth cilmiya iyo daraasaad akademiya, cilmi baadhisyo dhab ah, khubaro dhab ah oo maal iyo maskaxba ay gelinayaan bay ku baadhaan oo eegaan mustaqbalka muslimku soo noqonaya. waxaan odhan karnaa aqoon-yahano badan oo ay leeyihiin waxay rumaysanayaan laa maxaala inuu islaamku soo noqonayo sababo badan daraaddood, laakiin dee laysma dhiiba bay rumaysan yihiin ma la dibdhigi karaa. ma 20 sano ku soo noqon, ma 50, ma 100, ma 200. haddaynu 200 gaadhsiin karna dee muddaynu haysanaa weeyaan. marka iyagu baxfiga waxay u samaynayaan inay ogaadaan niqaada dacfigaaga iyo meelaha xooggaagu uu ku jiro iyo meelaha dacfigaagu ku jiro. saa awgeed cidda cadowga ahi waxay isku dayaysaa pointiska ama nuqdadaha dacfigaana inay buunbuuniso, xoojiso, ballaadhiso oo tiro badiso, meelahaaga quwadana sidii ay u xadidi lahayd ee u yarayn lahayd inay tijaabiso. muslimka waxaa la arkayaa bari iyo galbeedtoona ma rabaan. reer galbeed islaamnimo cadownimo taariikhiyo hore ka soo dhaxayso waxay rabaan inay carqaladeeyaan intay carqaladayn karaan. bariga soo socdaana kama roona oo China iyo gruubkiisu kuwanaaba ahlu kitaab labada ah, kuwanaaba waxyaabaha qaarkood inala wadaaga. laakiin China iyo gruubadooduna waa laga yaabaa duruufaadka qaarkood masaalixdu inay isku soo dhacdo, laakiin ka mabda ahaan way ka fog yihiin. caalamul islaami dadka xukumaana
labadaaba inay ka sii fog yihiin baaba laga yaabaa oo iyaguna dantooda inay u arkayaan islaamnimadaasi inaanay ku soo noqonin waayo ninka siyaasiga ahi waxa maslaxadiisa ugu jirta lagama fujiyo had iyo goor maslaxad malaa wuxuu arkayaa sida tan inuu dadka gacan bira ku hayn karo qofka caadiga ahi markuu eego wadciga muslimiintu ay ku jiraan oo ah dhaqaalahoodu inuu dambeeyo siyaasadoodu inuu dambeeyo maalku in laga maal badan yahay hubka in laga hub badan yahay niyadjab badan baa dadka qaar ku abuurma laakiin dhan kale marka la eego waa ummadda ugu da'yaree dunida ku nool that means Soomaali maanta haddaynu eegno waxa laga yaabaa boqolkiiba 70 inay 30 jir ka yarta that means waa xoog soo socda masaajidka imika haddaan sidaa u eego waa cirro laba qof iyo laba laga yaabaa inaan arko macnaheedu waxa weeyaan waa ummad dhalinyaro ah Soomaaliya qudhana maahe waa caalamulislaam oo dhan baa noocaasiya cagsiga haddaynu galbeed iyo bariba eegno waa dawlado gebgaboobay iyo dad gebgaboobay iyo maskax gabowday da'yartoodu da'weyntaa ka badan inta benshanka gelaysa ayaa ka badan inta soo gelaysa shaqada that's why ay in badan qaxoonti u qaataan qaxoontigani waxa la rabaa in lagu buuxiyo meeshii dadkii shaqada gelayay waayo dadka ka sii baxaya benshanka noqonaya ka badan da'yarta shaqada soo gelaysa idan haddii xagga bini aadamka laga eego caalamulislaami waa dhalinyaro waa dad xoogganoo mustaqbal loo soo socda haddii laga eego dhulkay degan yihiin waa dhulka dunidaba isku xidha cidda dhulkaa xukuntaa dunida xukunta waxay yidhahdaan dunidu badaha dunida isku xidha cidda xukuntaa xukunta 5-6 kanaalee dunida isku xidha mid mooyaane inta kale muslim buu ku yaallaa Panama Canal oo labada Maraykan dhexdooda ah ayuu baan gacanta muslimka ku jiray ama inta kale waa Bab al-Mandab waa Canal Suez waa Jabal al-Tariq waa Bosfor ama marma labada uu leeyahay Turkigu waa Hormuz kan Iran iyo Oman iyo inta u dhaxaysa waxa kanaal dunida isku xidha gacanta muslimka ku jira waa wasad ad-dunya Maraykan intaasuu xoog ku joogaa si uu maamuli kariyo Ingiriis Turkiga intaasay heshiis kula galeen 100 sannadood khilaafadii Uthmaaniga markii la ridayay heshiisyadii laga galay waxa ka mid ah 100 sano ee soo socda kanaaladaas inaanu iyagu lahayn free in lagu mari karo 2023 ayay ku dhan yihiin 100 sannadood 1923 ayuu ahaa heshiisku 100 sannadood waa 23 markay gaadho ayuu dhamaanaya wixii ka dambeeyay gacanta Turkiga ku wareegaya gacanta Turkiga hadduu ku wareego Russia dunida meel ay kala xidhiidha male Turkiga inay marto mooyaane biyo kululba male iyo wax xagaa ka xigo oo dhame si kale haddaynu u tilmaamno waxay degan yihiin meel Ilaahay dhigay energy-ga dunida shidaalka dunidana 70-80 wax ku dhow waxa Ilaahay hoos dhigay inta muslimku dego khaasatan iyo meelaha laga soo bilaabo ilaa iyo inta muslimku dego ayaa shidaalka energy-ga dunida hoos yaala caalamul islaami wuxuu ka mid yahay wadannada aan khaam maada khaam loo soo dhoofinin ee maadada khaamka ee wadannadooda taala wax kastaba inay helayaan anything loo baahan yahay dhulkoodu inuu leeyahay oo tasniic ama industry uu u baahan yahay haddii wadanku dhalinyaro uu yahay haddii mowqicu ku dhaca uu yahay mowqac dunida maamula haddii energy-ga dunidu gacantooda ku jiro hadday maadada khaamka ay helayaan iyagu haystaan waxa ka dhiman oo kaliya ciddii isku hagaajin lahayd الحنكة السياسية قائد كيلها صاحب الرسالة متكملة أقويها كرر البيت كوحوليه وحقورة نمكن بولي وين إنه حق السجاي إلى لنا
waayo waxa qudhe u dhimani waa salaaxdiin cusub oo soo baxa buu leeyahay nin risaalana sita xanaka siyaasiyana leh mabaadi'na rumaysan maamulna garan kara iyo si dad loo hogaamiyo caalamulislaami intaasaa ka dhiman risaalo daa'ima bay ay tilmaamayaan oo aan marnaba isbedelina way haystaan dadka kale kutubtoodii way qaldantay towraaddii rasmiga ahayd ma taallo injiilkii rasmiga ahaa ma yaallo bale maanta waxay maraysaa xataa afka markay noqoto dowlado waaweyn oo dunida ka mida baa tijaabinaya hadda arkiifyadooda rasmiga in af carabi lagu qoro waayo af carabigu waa afka qudhe aan isbedelin af carabigu 1200 sannadood buu sidii siiyey yani ninka luqa carbeed maanta bartay ashcaari aljaahiliya iyadoo loo fasirin buu akhrinaya waa carabiga ah buu ku qorayay kitaabka quraanka ah ee carabiga ah buu ku qorayay laakiin ingiriis oo luqadiisu dunida ay ugu xoog badantay Shakespeare wuxuu qoray in loo tarjumo modern Englishka mooyaane in yar ba akhriyi karta waa 700 sannadood ka hor 700 sannadood ka hor wixii la qoray dee ingiriisi ba 600 sannadood meelahaas u jira ee ka horeeyay Germanic languages ku ka tirsanaa yani Latin language buu ahaa waxaan uga dan leeyahay risaaladooduna waa kayd yaallo sidiisii u yaallo cid ku dhaqantoon u baahan aan marnaba taxriif gelin aan marnaba lumin ilaahayna uu quraankiisa ku sheegay inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahaafiduun ana soo dajiyay baa ilaahay ilaana ilaalinaya ilaahay wuxuu u ilaaliyay xataa afku ku qoray in rabbi dhowro culamadii muslimiinta hore buxuuftay samaysay idan luqada carbeed waa tii nabi maxamed ku hadli jiray calayhi salaatu wasalaam waa tii abu jahl ku hadli jiray iyo kuwii ka horeeyay waa tii cantara uu ku gabiyay waa tii maxay imraul qays uu gabayada ku tirinayay gabayga imraul qays baa imka inta la akhriyo caadi loo fasiraya waan ishkaal ku jirin si caadi loo garanaya wixii sababi lahaa waxay leeyihiin dadka kari markaa waxay haystaan xadaara qadiima waa mar labaad bay leeyihiin taariikh bay leeyihiin umamku taariikhda kama soo hadhaan haddaad taariikh hore leedahay waad hibanaysaa inaad soo noolayn karto haddaanad se taariikh lahayna daba go-an tahay ma jiro aabbayaal hore oo dib ugu noqotaa islaamku taariikh buu leeyahay tilmaamaysaa dunida tan dhowr boqoloo sannadood ama 1000 sannadood inuu keligii hogaaminayay oo dunida number 1 u ahaa hadday cilmi tahay hadday jaamacad tahay hadday dhaqaale tahay hadday everything wax kastoo la eego iyagu ahaayeen ibn david waxaan tilmaamayay clips by waa nin gaaleed oo qoraayahana oo taariikh cilmi ka warama wuxuu lahaa quruun alwusta 130 kii caalime dunida joogay 120 baa dunida muslimka ka yimid buu leeyahay adduunka kale oo dhami 10 buu lahaa yurub oo dhami 4 bay lahayd tamacnaheedu waxa weeyaan waa dad taariikh iyo xadaaro leh soo jireena oo sababi karta inay dib u soo nooleeyaan intaa waxaan ku daraynaa haddaad taariikhda daraasayso ilaahay wuxuu leeyahay watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas watilka alayaam nudaawiluhaa bayna annaas bini aadamka ilaahay waa u kala bedbedelayaa nolosha oo ma jirto ummad weligeed jab loo qoray ummad weligeed guul u qorantayna ma jirto laakiin aadanuhu waa qoriisu dhiib iyo calanisu dhiibkaasoo kolba qola xoog badata bal hadda taariikhdii nabi maxamed ku noqoto calayhi salaatu wasalaam iyo islaamka markuu nabi maxamed kali aha dunidoo dhamina ka soo horjeedo qof qura qiyaas oo adduunkoo dhami ka soo horjeedo mar buu lahaa cid hoysa man yu'wini wariya ay hoynaya mar buu lahaa oo aan ilaahay kelmadiisa sheega oo taariikhyahanada qaarkood tilmaamaan 15 qabiil inuu isu soo bandhigo 15 kuma diideen ilaahay faraj wuxuu uga furay dhalinyaro ansaar inay aqbasho qaadato inay yimaadaan oo islaamka rumeeyaan oo bay'a al-aqaba lula iyo bay'a al-aqaba thaniya la galaan oo dabeetana yidhaahdaan annaga hiliyo hooba ku siinayna noo kaalay oo carab oo dhan wuxuu ka waayay dhalinyarada yar uu ka helay uu xoogaystay oo
dagaalkii koowaad ee lagu soo qaaday Beder uu guulaystay kii labaad buu haddana jabay oo laga xoog batay kii ku xigay baa Khandaq oo haddana uu guulaystay kii ku xigay buu haddana marna jabay marna Hunayn yani taariikhda bini aadamku laakiin ilaahay wuxuu leeyahay wal caaqibatu lil muttaqiin ciribta dambe waxa iska leh kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada marka waxaan leenahay kow adduunka kani ilaahay buu gacantiisa horta marka hore ku jira taa rumayso maanta dunida reer galbeed baa hogaamiya cid dambe oo eray ka daba tidhaahdaa ma jirto laakiin hadda wax 30 sano ka hor dunida dawlado waaweyn oo kala shuuci la yiraahdo iyana qaybtooda ka taliya jiray 2 sano gudahood baa shuuciyad dal dunida la waayay 2 sano gudahood ay may noqdeen sidii tusbax la furay daate dawlad ka dambaysa ay dhacday reer galbeed maanta uu ogyahay inuu daalay dhalinyaradoodii baa lunsan akhlaaqiyadkii ka lumeen dadkoodii xumxumaabaa kor soo maraya dhaqaalahoodii baa sii burburaya dhashoodii baa sii yaraanaysa wadannada qaarkood 1.25 bay marayaan that means boqolka qoys labada boqol qof ka kooban 100 nin iyo 100 gabdhoodii dadkii bedeli lahaa ma dhalaan 125 qof bay dhalaan that means tirada waddankaas sii yaraanaysa Soomaaliya 30 sano ka hor intay leekay dadku deni walba awowga 30 sano ka hor awowga intuu dhalay misay maanta say misuuyi waxaad garan kartaa Soomaaliyiinta intay badatay waa inta laga yaabaa awowgay 30 sano ka hor ama 40 sano ka hor haddaan tiriyo wax gacanta lagu tiriyo inuu ahaa maantana waxa laga yaabaa inay boqolaaliyiin nin walba Soomaaliyeedna waa sidaa tan yani intaasoo jeer baa laba laamay iyana waxa laga yaabaa inay tiradu intay awowgii ahay ka yaraatay 40 sano ka hor awowgii intii uu dhalay ku tirsanaysay maanta inta ku tirsatayna ka sii yartay idan waa dad gaboobay oo tiradoodu sii yaraatay oo dhalintoodu sii baaba'ayso oo dhaqaale burburna ku socdo oo xataa unity-goodii uu hadda bilaabmay inuu dib u gilgilmo Yurub oo tan sii kala googo'aysa Ingiriis ka baxay tii kale wali waa isku oodan tahay dee ilaahay balaayooyin kala buu keeno corona iyo wax kala soo baxay dimuqraadiyaddii dunida loogu bushaarinayo waa taale ninna ictiraafi maayo tii Afrikaanku kale imka waa uun ka askari yar tahay sidii baa la soo hayaa waxba kama jiraan ana madaxweynaha in la soo taagan yahay systemku ma aha system fudud horta de habeen iyo maalin dumaya maaha saamaha laakiin waxaynu tilmaamaynaa naqaad dacfiga inay bilaabmeen ay muuqdaan meelihii liidashadu ka jiray way soo biirayaan values-kooda ay yaqaaneen qiyamkay hayeen wuu sii lumaya xataa qiyamkii dawladnimo ay lahaayeen ayaa sii lumaya dee inay iyagu lumaan macnaheedu maaha inaad adigu xoogaysatay haddaad adna ka sii liidato dee wasal halkii cadow waa jabay adigu maad guulaysande adoo haddaad wax noqotaad guulaysanaysa haddaba waxaan leenahay kow horta waa inaynu rumaynaa ilaahay in dunidu gacantiisa ku jirto caqiidadaas waa inaanay dadka ka lumin qul illahuma maalika almulk tu'ti almulka man tashaa ilaahu dunidan adaa maamula cidi kulama maamusho adaa mulkiga siiya ciddaad doonto watanzicu almulka miman tashaa adaa ka siiba baa ilaahay qur-aanku tilmaamaya tanzic adaa ka siiba boqortooyada ciddaad doonto watucizu man tashaa watudillu man tashaa adaa ilaahay oo casiis ka dhigo oo nooleeyo sharfa ciddaad doonto ciddaad doontana adaa duleeya biyadika alkhayr gacantaada aday wax waliba ku jiraan innaka calaa kulli shayin qadiir wax walbana adaa awooda idan biyadihi alamru kulluh ilaahay gacantiisa ayaa noloshoo dhammi ku jirtaa waxaynu leenahay marka la qiimeynayo mustaqbalka hadday taariikh noqoto taariikh dadkani waa leeyahay uu hiigsado
hadday noqoto waaqaca maanta yaalla waxaan leenahay waa waaqac sheegaya ummad dhallinyaro ah oo waddankii ilaahay dunida ka doortay degan oo kanaaliskii dunidao dhan iyaga gacantooda uu ku jiro oo dhaqaaliya wixii waddanku u baahanaa ilaahay meeshooda ku sameeyo ku abuuray oo u baahan isku habayn damba uun yacni waxii ummade ay kor ugu noqon lahayd oo dhamme agtooda waa taallaa intaa waxaa dheer mubashiraadka xagga rabbi ka yimi oo nusuus qur'aanah iyo xadiidah oo ilaahay soo dejiyey oo tilmaamaya inay ummadda tani dib u guulaysan doonto iyana waa taalla ilaahay baa wuxuu leeyay wacada allahu aladiina aamanuu minkum waacmiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shayئa waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum اlfaasiquun ilaahay wuxuu u yaboohay kuwa iimaanka laga hele inaga midka ah camalka suubanna sameeya yacni طariiqu اlciza raaca waddada lagu liibaanayana raaca kama warramayno ilaahay ma odhanin kuway rumeeye iska seexda kor baan yeelayaa ilaahay ma odhanin nuumuu walaa tastayqaduu iyuu ciraaqigii nin gabyaayo ciraaqiya wuxuu ka yaabay muslimku maanta siduu yahay waa hore maasuu gabay tiriye uu leeyahay seexdoo ha toosina inta hurduun baa guulaysata buu yidhi yacni wuxuu sawirayaa xaalkeennu famaa faaza ilaa nuwamu buu yidhi ma guulaystaan kuwa hurda mooyaane idan nin hurdaa ma guulaysto ninkii seexdaa siciid dibi dhalay bay soomaalidu tidhaahdaa laakiin ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala kuwa iimaan laga helaya camal saalixa kuwa caqiido iyo inay mabaadi'da ku dhaqmaan oo raacaan laga helo kuwaa ilaahay wuxuu u ballan qaaday layastakhlifannahum fi lard laam iyo nuunu tawkiid baa ilaahay ku adkeeyey kuwaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulka khilaafadiisa waa u dhiibayaa sidii kuwii iyaga ka horreeyeyba loogu dhiibay yacni jidka nolosha haddaad raacdo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idin noolaynayaa baa la leeyahy walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum ilaahay subxaanahu wa tacaala waa makansiinaya oo gacantuu u gelinaya diintoodu raalli uga noqday maanta waxaa laga yaabaa dunida qaybo badan oo ka mid ah muslim baan ahay dadku inay kaba xishoodaan oo isla baa lagu dila haddaad afka ka tidhaahdo muslim baan ahay baa lagu yidhahdo waa terrorist ninkan iyo islaam buu sheegtay laakiin ilaahay wuxuu u ballan qaaday hadday jidkan raacaan walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum ilaahay waa makansiinayaa diintoodu raalli uga noqday walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna baqahooda dabadeed ilaahay wuxuu ugu bedelayaa nabadgelyo haddii caalamulislaami maanta siyaasiyiintiisa iyo waxgaradkiisa iyo aqoonyahankiisa in badani ka midi ay baqayaan o isleeyahy haddaa waxaad tidhaahdaan arma gaaladii soo duushaa armaa laydin qabsadaa armaa lagu xidhaa armaa lagaa hor yimaadaa oo nin waliba maslaxadiisa ka daydayey qoladaa raalligelintooda ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala rabbi walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna laakiin waxaani maxay ku xidhan yihin yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a baa ilaah yidhi waa inay aniga ay caabudaan waanay cidna igu shrig yeelin xaaladdaa hadday gaadhaan waxaan waa helayaan waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum lfaasiquun ciddii gaalowdaana waa faasiq baa ilaahay leeyay gargaarka alle heli maayo aayaad kale ilaahay wuxuu leeyahy isagoo rabo rabbi inuu inoo tilmaamo dunidan inuu isagu ka taliyo yuriiduuna an yudfiuu nuura allahi biafwaahihim qaar baa raba baa ilaahay leeyahay ilaahay ifkiisa inay afkooda ku damiyaan ka warran ninkaas idhahda cadceedda afuufoo demi waa nin waalanun soo ma aha waayo cadceeddu inay xoog weyn tahay oo aan bini aadamku u taa kelin baad rumaysanta markaa nina inaanu afkiisa ku damin karin rabu الsamaawaati walardina nuurkiisa cidna af kuma damin karto ilaahay baa wuxuu leeyahay yuriiduuna an yudfiuu nuura allahi biafwaahihim
waya'ba allahu ilaa an yutima nuurah ilaahayna waa diiday taasi inuu nuurkiisa dhammaystira mooyaane diintan ilaahay wuxuu ballan qaaday ilaa qiyaamu saaca marka dadka la layn doono wakhti ku dhow inay iyadu joogi doonto saa awgeed inaanay suurtagal ahayn in la damiyaa walow kariha alkaafiruun baa ilahay yidhi xataa kuwa gaaleed haba necbaadaane huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini اlxaq liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun fii suurati tawba iyo fii suurati saf ba ilahay waa ku tilmaamaya ilaahay waa kan rasuul soo diray oo hanuun ku soo diray iyo diin xaqa liyudhirahu cala addiini kulli diin oo dhan inuu ka kor yeelo waa mubashiraat markaa huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini اlxaqi liyudhirahu cala addiini kulli wakafaa billahi shahiida fii suurati اlfatx yani 3 aayadood oo qur-aana masaladaas ku soo aroortay waxay leenahay axaadiista soo aroortay way tiro badantay walidalik baa sheekh alalbani raxmat ullaahi calayh kitaabkiisan la ydhaha silsila alaxaadiis asaxiixa wuxuu ku bilowday axaadiista mubashiraadka awal xadiid iyo 1 iyo 2 iyo 3 wuxuu ku bilaabay axaadiista muslimiinta dhiiri gelinaysee bushaaradii nebi moxamed uu uga tegey ayuu ku bilaabay ou ka mid yahay xadiidka nebigu leeya calayhi الsalaatu wasalaam imaamu muslim soo saaray in allaha zawaa lii ilaahay wuxuu ii simay oo ii ururiyey zawaa liya alarda dhulkoo dhan baa laysoo koobay fara'aytu mashaariqaha wa magaaribaha kaannamaa dee t v laga tusay oo kale dhulkoo dhan ayaa laysoo ururiyey buu nebigu leeya calayhi الsalaatu wasalaam waxaan arkay barigeed iyo galbeedkeedaba waina ummatii sayabluqu mulkuha maa zuwiya lii minha ummaddaydana mulkigeed iyo maamulkeedu wuxuu gaadhi doonaa inta lay tusiyey buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yacni waxaa soo socotuu nebigu tilmaamaya wakhti caalamkao dhan islaam ka taliyo caalamkao dhan inuu islaam ka taliyo dadka badh baa waxay u fakerayaan goormuu muslimku xoog badan doonaa caynka war dadka quluubtooda in la furtaabaa ka fiican in dhulkooda la furto dadka quluubtooda in la furto ayaa ka qurux badan maxay in dhulkooda la furto isagoo qofku dhulkiisa degan baa diinta la gaadhsiin karaa islaamnimada u qaadan karaa dad muslima iyo dowlad islaamiya dad khayr jecel ay noqon karaan si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay wa ucطita alkanzayn alaxmara walabyad wakhtigaa madiinaa lagu hortaagnaa dabeetana wuxuu leeyahy waxaa lay siiyey kanziga daartii casayd iyo daartii caddaydba labadii dowladood ee dunida markaa ka talin jiray midna guriga cad buu lahaa midna guriga cas buu lahaa dee imikaba rushyankuna guriga cas buu lahaa maraykankuna guriga cad buu lahaa bershiya iyo romanskuna qolana guri cad bay lahayd qolana guri cas bay lahayd dabeetana nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam wa ucطitu alkanzayn alaxmar walabyad hadday tahay dahab iyo fidana waa lay siiyey buu nebigu tilmaamaya wainii sa'altu rabbii liummatii an laa yuhlikaha bisanaةi caama waan laa yusalliطa calayhim caduwa min siwa anfusihim fayastabiixa baydatahum waina rabbii qaala ya muxamadu inii ida qadaytu qadاءa fainahu laa yuraddu wainii acطaytuka liummatik an laa uhlikahum bisanaةi caama waan laa usalliطa calayhim caduwa min siwa anfusihim yastabiixu baydatahum walow اجtamaca calayhim man biaqطaariha aw qaala man bayna aqطaariha xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacda wayasbiya bacduhum bacda nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeya ilaahay waxaan weydiistay ummaddayda inaan ilaahay subxaanaه wa tacaala ku itixaamin abaar dhammaysa iyo cadow ka xoog bata oo dhammaantood qabsada ilaahayna subxaanaه wa tacaala wuxuu u tilmaamay haddaan wax xukumo xukumkayga lama soo celiyo ummaddaada abaar dhammaysa ku qaban maayo cadow intuu ka xoog bato dhammaantood qabtana ku qaban maayo laakiin dunidoo dhamme xataa hadday isugu timaado ma jebin karayaan laakiin iyagaa badhba badhka kala qabsan doonaan oo balaayadoodu saasay ku dhici doontaa
caalamulislaam waddan kastoo la gumaysto qaar kaloo muslimuunbaa dee gaalada dabada kaga jira iyagunbaa jabkooda ka mas-uula sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo laakiin axaadiis badan baa waxay tilmaamaysaa xadiidka ibnu xibbaan layabluganna hada alamru maa balaga alleyla waannahaar diintani inay gaadhi doonto inta waa ka baryo habeenna ka dumo dunidao dhan dee habeen waa gaadhaa maalinina waa gaadhaa diintani way gaadhaysaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam guri dunida ka jira ma jiro ilaa diintani way geli doontaa ama iyadoo bicizi casiizin bay ku geli ama bidulli daliilin islaamnimada xoog badan bay ku geli oo hayana dullaysan yihiin ama dee dadku iyagaa islaamka qaadan ama waa la qabsan waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada u sheegay buu yidhi labada magaalo in la furanayuu sheegay waa rooma magaalada caasimadda talyaaniga iyo qustantiin waa caasimaddan hadda turkiga laga maamulo laakiin markaa labadaba midna waxay ahayd markaska diineed ee reer galbeedka midna waxay ahayd markaska siyaasadeed ee reer galbeedka qustantiin waxaa gacanta ku hayaa dowla albizantiya oo ah dowladdii romanskee weyneyd wixii ka sii hadhay ta kalena waa meeshuu fatikaanku deganaayo diin ahaan xadiidkana wuxuu tilmaamayaa labadaba muslimka gacantooday soo geli doonaan dabeetana waxay weydiiyeen saxaabigii sheegaya cabdillaahi bnu camar ibnu alcaas labada teebaa la hor furan doonaa sanduuq yaroo uu meel dhigtay buu yihi sanduuqa ii keena waa loo keeno wuu furay dabeetana qoraal buu ka soo saaray markaasuu qoraalkii akhriyo wuxuu leeyahay annagoo nebiga la fadhina calayhi salaatu wasalaam oo xadiidka ka qoraynaa ayaa nebiga su-aashan la weydiiyey labada magaalo teebaa la hor furanayaa dabeetana nebigu wuxuu nagu yidhi qustantiin baa la hor furanayaa ama madiinatu hiraql tuftaxu awala magaalada herakles ninkii la odhan jiray magaaladiisaa la hor furanayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtiguu sheegaya wakhtigaasay ahayd laakiin goormaa la furtay waxaa la furtay 800 sannadood ku dhowaad nebi maxamed gadaashii nebigu uu sii sheego waa la furanayaa buu yidhi lakiin wakhtiguma sheegin dadka saxaabadii waa isku dayday waa u suurtoobi weyde abu ayuub alansaari iyo dee magaalada dacalkeedu ku aasayi waa u suurtoobi weyde ciidamo muslimiin oo ka dambeeyey boqor waliba nebigu wuu ammaanay nimanka halkaa furan doona waa isku dayay may suurtogelin qarnigii 15aad ee miilaadiga dabayaaqadiisii sbain markay dumaysay xagga kalena qustantiniya la furanayay spain 1492 meelahaasay dantay aakhir madiina laga soo saaray muslimiinta xagga kalena wakhtigaa wakhti ku beegan bay furteen oo markii dowladda muslimiinta ee dhinaca galbeed soo dumaysay dowladdii muslimiinta ee dhinaca bari baa sii xoogaysanayso sii socotay malaha hijriyadu 800 iyo dheeraad inay ahayd baan filayaa wakhtigaasi haddii taa la furtay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dabadii 800 sano kadib weliba culammadu xadiiska saxiix muslimna waxay tilmaamayaan mar labaadna in qustantiniya la furan doono laakiin marka labaad takbiir in lagu furan doono aan xabadba lagu ridi doonin laa ilaaha illa allah iyo allahu akbar in lagu furan doono malaa un dee waa markana cilmaaniyiintan iyo beliya baaskana dib u qabsadeen dee un malaa dad takbiirsanay uma dib uga qabsan doonaan filaya roomase weli lama furan roomi weli waxay ku jirtaa maxay gacantii reer galbeedka laakiin xadiiskani wuxuu sheegaya in roomina in islaamku gaadhi doono o islaami doonto roomana inay noqon doonto maxay magaalo muslim buu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam waxuu nebigu xadiis kale ku tilmaamaya nebinimadu intii alla doonaabay joogi doontaa dee nebi maxamed nebi ka dambaynaya ma jirin intii uu nebigu noolaa unbay joogaysa dabeetana ilaahay baa rafcin doona waxaa iman doonta khilaafa ama maamul calaa minhaaji nubuwa dariiqii nebi maxamed haysta ayaa iman doona isna intii alla doonaa buu joogi doonaa dabeetana waa la rafcin doonaa buu nebigu yidhi waxaa ku xigi doona buu nebigu yidhi boqorro adag
mulkan caadan isna intii alla qadaraa buu joogi doonaa waa boqorradii muslimiinta ee waxna qaldayay waxna saxayay kadib baa ilaahay rafcin doonaa waxa ku xigi doona buu nabigu yidhi mulkan jabariya boqorro dictator ah dee mala waa inta maanta joogtay iyo wixii la nooca kuwo dadka nafta isugu keenaya ayaa ku xigi doona buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyana mudday joogi doonaan buu nabigu yidhi uma yarfacuha ilaahay baa rafcin doona kuwaana haddana uma takunu khilaafatun calaa minhaaji nubuwa waxaa soo noqon doonta buu nebigu leeyahay khilaafo mabda'ii nebi maxamed ku socota idan waa inoo dhiman tahay markaa mar dambe waa soo noqonaysaa uma sakat nebigu halkaa markuu marinayo aamusay maxaa ka dambayn doona ilaahay baa og wixii ka dambayn doona nebigu calayhi salaatu wasalaam kama warramin intay iyadu sii socon doontaa kama warramin waxaan uga dan leeyahay muslimku wuu soo noqon doonaa waa hubanti hadday dhashaa tahay wuu soo noqon oo 19 century ama 19 something 20 centurieska bilowgeedii qarnigii 20aad bilowgeedii ingiriisku ilaa 50 milyan oo dhadhow buu ahaa 60 milyan waxaa cagaynaya masarna 5 milyan bay ahayd maanta masar waa 100 milyan ingiriiskuna wali waa 60kii alqarni dabadeed waa 60kii masarna waxay maraysaa intaa mowqaca istaraatiijiga ee ah almiyaahi daafi'a biyaha diiran ee dunida oo dhami gacantoodu ku jira mawaaridda khaamka ah ee hadday dhallinyaro tahay iyo hadday energy tahay iyo hadday dhulbeereed tahayba gacantoodu ku jira taariikhdaasi la yaqaane macruufkaa way leeyihiin kam iyo kayfba ama quantity iyo qualityba waa dad soo socda waxay leenahay muslimku wuu soo noqonayaa waana laa maxaala inuu dib u soo noqdo laakiin in la soo noqdo waxaa ka horeeya waa dhab faama zabadu fayadhabu jufaa'an waama maa yanfacu nnaas fayamkutu fi lardi baa ilaahay yidhi xoorka iyo daadxoortu waa tegaya waxa dadka anfacayana waa hadhaya in alarda lilahi yuuriuha ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulka isagaa leh oo dhaxal siinaya addoomihiisa cidduu doono wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramay yahuud oo la gumaystay oo lagu xukumayba inaanay rag dhalin oo sidaa loo galay ayaa ilaahay yidhi waxaan doonay inaan iyaga dhulka makansiiyo fircoon iyo intiisiiba inta ilaahay halaagay baa maxay yahuud dowladnimadeeda ay timi waxaan leenahay islaamku wuu soo noqonayaa laakiin wuu soo noqonayaa macnaheedu maaha intaynu iska fadhfadhinno oo isku akhrino niyaddan idhaahno qur-aankay ku taalla iyo xadiidkay ku taalla ayaa islaamku iska soo noqonayaa oo dunida gaaladuna waa dubi doontaa insha allahu inana waa ka boodi doonaa warkaasi waxba kama jiraan waxa wax ka jiraan haddii la shaqeeyo unbaa wax soo noqonaya intaynu hurudnaa wakhtigu wuu sii dheeraan intaynu baraarugsanne wax qabanaynana wakhtigu wuu soo koobi iyadoo ilaahay qadartiisa ay ku xidhantay saxaabadu maxay lahaayeen markay nebiga la shaqaynayeen lain qacadnaa wannabiyu yacmalu ladaka mina alcamalu lmudallalu haddaynu fadhiisanna buu yidhaahdeen isagoo nebi moxamed shaqaynayo kaasi waa shaqo baadila oo aynu wax yacnii camal lunsano aynu samaynay weeyaan ilaahay nasrigiisaa noo imanaya dabeetana waa fadhfadhinaynaa waxba kama jiraan ilaahay wuxuu leeyay waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana jidkayga kuwa u dadaala aayaddu waa maki qabla aljihaad bay soo degtay waaladiina jaahaduu fiina
kuwa juhdigooda iyo dadaalkooda ku bixiya ilaahay dartii ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala dariiqa saxa baan ku hanuuninaynaa waaladiina ihtadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum kuwa hanuuna hanuun baan u kordhinayaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala cadow baa jira iyo dad baa islaamnimada ka soo horjeeda oo ma nebi meel cidlaa yimi baa jiray ambiyadoo dhammi ilaahay wuxuu ku tilmaamaya qur-aanka wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa min almujrimiin baa ilahay yidhi nebi kasta kuwa mujrimiin oo col u abaanu ayaa la joogay baa ilaahay tilmaamaya hadday cidi meel cidlaa ka soo guulaysanayso dee ambiyada ka soo guulaysan lahayd noloshu isriixaasay walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacd noloshu isriixaasay ku socotay sida awgeed wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waاljini yuuxii bacdahum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruura walitasqaa ilayhi afidat ladiin ilahay wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyada inay ka soo horjeedeen kuwo col u ah shaydaamada insiga iyo jinka baa ilaahay yidhi jin tiro badan baa ka soo horjeeday nebiyada kuwa insiyo yaro shayaadiin oo kalaa ka soo horjeeday oo mabaadi'da qaldan faafinayay waxaan leenahay markaa mabda'ii raggiisu qaadaana wuu guulaystaa rabbina wuxuu yidhi waa u gargaarayaa mabda'ii dadkiisu seexdaana waa seexdaa cadowga xoog badnidiisa waxba kuma xidhna laa yagurannaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad baa ilahay yidhi yay idin baqa gelinin yaa ku kadsoomina gaalada dunida rogroga ay isku rogrogayaan iyo waxoogaaga ku haystaan waa mataac qaliil baa ilaahay yidhi laakiin quustuna ma jirto huwa aladii yunazilu اlgayha min bacdi ma qanatuu wayanshuru raxmatah ilaah isagaa roobka iyo naxariista soo dejiya dadku markuu quusto kadib sidaa awgeed waxaan leenahay kow cadam ilya's quusta joojiya nebi moxamed iyadoo maka la joogo oo laga xoog batay oo saxaabadiisii hortiisa lagu tumayo waxba uu qaban kari waayey ayuu saxaabi ka mid oo nafti haysaa u yimi maasuu yidhi ilaahay rasuulkiisa maad ilaahay noo baridin alaa tadcu lana maad ilaahay guul noo weydiisi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay taariikhda bini aadamku say u socoto idinka dadkii idinka horreeyey qaar baa intay ilaah iyo rusushiisa rumeeyeen la qabtay buu nebigu yidhi oo inta god lagu riday mishaar halka laga saaray oo laba loo kala jeexay ilaahay baan ku dhaartay diintan ilaahay waa u hiilin doonaa oo way guulaysan doontaa buu nebigu yidhi makaa lagu hortaagayay markaasuu yidhi sanca ilaa xadaramowt ayaa ay socon doonaan iyagoo qofku inuu adhiga yeyga iyo waraabaa ka ceshada mooyaane cidna aanu ka baqaynin nimanka maka ka bixi kari le ee lagu tumayo ayuu nebigu wuxuu u sheegayaa diintan intay guulaysato inay sanci iyo xadaramowt dhex socon doonaan iyagoo aan cidna ka baqaynin xoolahooda inay yeyga ka ceshadaan mooyaane walaakinakum qowmun tastacjiluun buu nebigu yidhi waxaase tihiin dad degdegaya degdeg waa meel iska tuur adaan waxba dhisan iminkaan haf iyo haf ka siinaya waa meel iska tuur taasi waxba samayn mayso laakiin waxay u baahan tahay dadku inay tooda dhistaan saxaabadii jabtay lama odhanin khaalid baa xariif ahaayo intuu xagga dambe idinka maray idin jebiyey ee waxaa lagu yidhi qul huwa min cindi anfusikum talaxumadu idinka timi waa ilaahay mushkiladdu idinka timi weligeed baa cadow iyo dad ishaya dunida waa jireen dad la yidhi cadowgiina la xaaqi doonaayo idinku marka la mariyo idinkoo rooraya soo galana ma jirto dunidu tadaafucaas bay abidkeedba ku jirtay laakiin dadkii dhisma soomaalida maanta joogtaa waxay dhahdaan gaalaa laynagu itixaamay gaala caynkanoo etoobiya ka samaysayoo kenya ka samayso qolo joogtaa maxaa la yidhaahdaa xeebtaa xamar baa waddankeenna maamusho caynkanoo waar dee ninkii tashan kari waayo waa loo taliyaa de dunidu waa caynkaa carruurtu ma tashan karto waa loo taliyaa bini aadamka wixii tashan kari waayo waa loo taliyaa cid u talin kartaa u timaada mashkiladdu waa innagee maaha iyagu waa nin dantiisa raacanaya lama yidhaahdo niyow axmaq baa tahay maxaa dantaada u daba gashay
tiisuu ilaashanaya waa nin rageed oo tiisa ilaashanaya cidda doqmo ahi waa iyo waa innaga adaa taagan tuulada nagu xigta ha nagu soo durkina waa ka soo adhigiinu uu soo dhaafay halkii uu daaqi jiray sanadihii hore ayaa taagantay inaad duni kale wax ka qabato iyo dad kale inaad wax la qabsato daaye tuulaba tan ku xigtay adhiga ka ilaashanaysaa way leedahay halkaa reerkiinu ma degi jirine waa ka soo tallowdeen xuduuddii oo goormaad reeg iska celin marka ciddaad iskaba ilaalinaysa hadduu walaalkaa yahay iyo kii aad dad bay isugu dhowaydeen yaad iska celin kartaa markaa soomaaliya cidima jebinay iyadaa isjebisay xaqiiqadu waa kaa muslim cidima jebinay isagaa isjebiyey isagu markuu istumay ayaa la bakti wareemay markay dadka nool ahaayeen dunida dad bay ka ahaayeen tirsan oo aan cidina soo hunguraynin haddii la hungureeyana wax iska dhiciya waa dhici jirtay dagaal in maalin laga badiyo laakiin iyana berritay ka badin jireen dadku saasuu isu riixriixayay laakiin waanu iska fadhaynaa dunidayna soo gaadha oo dawlad noo sameeya oo duniday kaalay oo dad naga dhiga wax nin weyni ku hadlaba maaha yacni wax nin weyni ku hadlo intuu meel istaago ma aha adduunow soo cararoo wax noo qabta soomaalida arkaysa markay suu leeyahay carab iga daawa nimanka halkaa ina dhigay oo iyaba meel kula mid ay jiifaane maxay ku dhigaan kuma dhaafaane aad taageersanaysaa kuma dhaamo haddaad adigu wax dhaanta aada ahayd inaad keento waxaan markaa uga dan leeyahay ayuha alaxiba qur-aankii oo cusub oo aan waxba iska bedelin baa ina dhex yaalla sunnadii nebiga oo la hufay oo aan waxba iska bedelin baa dhexdeenna taalla taariikhdii dunida mid muslim iyo mid gaaleed boo la hayo ayaa taalla iyo tajaaribtii bini aadamka taarikh bay muslimiintu leeyihiin asumuud fi alxaalaati asacba qoraayo badan oo reer galbeeda waxay leeyihiin dadkani waa laabud inay soo noqdaan laakiin dib ba loo dhigi karaa rag waa ishayaaye waa la joojin karaa inagu waxaan leenahay ilaahay wuxuu yidhi isagoo calaa lisaani nabiyullaahi ibraahim calaa lisaani nabiyullaahi yacquub innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun ilaahay naxariistiisa kama quustaan dadka gaaloobay mooyaane muslimku quusba ma yaqaano cumar almukhtaar baa laga hayaa kelmada naxnu laa nastaslim ya cumar almukhtaarkii talyaaniga ay isku hayeen libiya ayaa wuxuu yidhi annagu isma dhiibno ama waanu guulaysanaa ama waanu dhimannaa buu yidhi yani wuxuu tilmaamayaa noloshu isdhiibka inaanay aqoonin haddaba alislaamu laa maxaalata qaadim waa soo socda wa fardun calayna inaynu camal samayno qul icmaluu wasayara allahu camalakum warasuuluhu walmu'minuun waxaa layna yidhi war camal sameeya shaqo qabta alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintuba way arki doonaan waxaa qabataane laakiin laynama odhan qul naamuu wasayansurukum allahu meel lakuma taallo seexda ilaahay baa idiin guulaynaya meel ay ku qorantay ma jirto marka kelmaddeedu waxay ku koobantahay laba qodob oo qudha mid waxa weeyaan diintani way soo noqonaysaa haddii aqoonta bini aadam lagu eegana waa faafaysa waa diinta ugu faafis badan maanta ee dunida ka jirta waana soo noqon doontaa biidni illaahi tacaala laakiin waxa isweydiinta leh adigu safkaa ma ku biiraysaa kicinaya soo celinaya mise daawadayaasha qaybta maxaa la yidhaahdaa daawadayaasha mustamiiciina alkiraam good audience-kaad ka mid noqon doontaa dadka daawanaya dunida sida wax uga dhacayaan ma kuwaasaad ka mid tahay mise kuwa diintooda iyo dadnimadooda iyo dalkooda ayaad ka mid noqonaysaa idan adigu ilaahay waxba kaagama baahna laakiin adaa lagu itixaamaya lagu eegaya waana lagu sheegay haddaad jidka fiican qaadana in lagu guulayn doono kalluunsan haddaad qaadana in lagu baadiyayn doono aan waxba heli doonin marka waxaan ku koobayaa masaladan wax badan baynu ka odhan karnaa laakiin hadalka badani waxba ma taro waxay ku kooban tahay diintani way soo noqonaysaaye adigu kii
wax ku darsanayay ma tahay mise ma tihi. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.